xirfadda wadida baabuurta oo mid dad badan ay noloshooda ay ku maareeyaan balse sanadihii ugu dambeeyay waxaa si weyn u soo badanayay dumarka iyo da'yarta kaxeynaysa gawaarida cabdifataax maxamed gaarshe waa wiil da'diisu ay tahay 12 jir wuxuuna darawal ka yahay gaari nooca loo yaqaan booyad kaas oo uu shaqeeyo xaafadaha iyo tuulooyinka ku xiran degmada Ufeen wuxuuna darawal ka ahaa muddo ka badan 1 sano aabaha dhalay Cabdifataax ayaa sheegay in uu ku nastay wiilkiisa asigoona intaas raaciyay in uu yaraantiisu jeclaa wadida gaariga maadaama aabihiisu uu yahay darawal bismillaah magacayga waxa la yiraahdaa محمد قاش إسماعيل إن كان درول كان أنا قاعد لي وحاول جعلين ونقضه درول فكر كاسفا وجعله وأنا وجاري والدرول هذا وحيا جاري أبوي دارك تبوك شغية مقالة تبوك شغية ميجو مركب تراقب بحيا وحيا إلهي فضلي وينقول ما كنا نستي إذن كنا واضح تاني المانته أنت السلام ودرولي هاي هذا قصتنا بدرولي هاي لابد يكون يحيى توانكي هذا نواك مانته وحويه وكذا يجي قارياس رس هذه آد بنقول نستي ما الوجه هرا ميجا وحواس كواك حيا مقالة وحوي وساعة وشغية الحمد لله هذا نوادر تاني مركب يراني تدرولين وجعلان تبيع عادي درولين وجعلاه وقار قفكنا دوحين أهمية وصاروا مارت وجعلاه يا وكقول قارن mid ka mid ah darawaliinta ku nool degmada Ufeen ayaa waxa uu sheegay in Cabdifataax uu ka mas'uulsan yahay darawaliin badan oo xilligan ku shaqeysata wadada baabuurta marka loo eego sida uu ka xeenayo gaariga بسم الله الرحمن الرحيم نكان مركان كور بحيو نكان أقول ديراد بانو لهاي أديركيسان هاي مدة بدنا وانركاي لا يرانتيسي مركي وهو جوارد برناي ما شاء الله هدير وهو أنت ولاقي هاي لما وران كرو وانين مسؤول أو درول لكن لمن بدن أو درولين أو إلا يو دولة محاسيات بركوس النابو كدرول سيء كان مسؤول سيء هذا وهو يميجا وحنكو أركي سجوا وهو جاري عن وضع وهو dad xoolo dhaqata ah biyo u geynaya waxa weeye ma sha Allah baan leenahay waxa weeye wax badan baan waxa weeye ninkan arkay isagoo wax gaariga wata waa mas'uul magaalada aad aragtay oo luqyada miirana isaga gaariga wada geliya isaga biyo u dhaamiya aabihiis waa uu ku nastay marba uga tagaa oo tuulooyin kale iyo baadiyaha iyo meelaha uu hawlaya isaga gaariga wada oo waxa weeye hawshii odayga xiftiyay oo maamula waxaan leeyahay ma sha Allah Cabdifataax ayaa iga waramay dareenkiisa asigoona sharaxaad iga siiyay habka loo kaxeeyo gaariga magacaaga haye waxaan warbixisa inta sano daroolay hal sano waagi hore ma jeclaan jirtay inaad darool noqoto markaadii hore haye kawna marka hadda aad ku guuleysatay oo darool aad tahay dareenkaaga ana gaari barta haye وهذا وقت أنا سمع ميلول باقي سا. هي. مرك هذا واحد كحينا هاي أو منتوس كرتا جاري. فقلت هذا جاري محوك سعودات. هذا تري محوك سعودات. قلت سعود كم حوك وسعودنا الترتيب تري. حوك سعودنا يا جماعة. وقلت marka rabtid inaad go'aad gashid oo kale maxaa galaysaa formo gashaamaya go'aad baan galeynaa maxaa galaysaa triba ku jirmaya ma gatay wankii two iyo gorma loo socdaa ay dhaqaaq hore miya loo soo gaari ku dhaqaaqa 5 ma jira 5 gorma loo socdaa marka xawaaraha gaari oo wada fiican ay istimaa واقتي تريقنا معلومات القليل لو صعد. وانكي تو اسكو بدنا. مايا. وانكو على وجهك ما كلنا يا غير. أوريا. أو دقيقة. تو دقيقة صور ما كفارك.
cabdicasiis nuryare cabdicasiis daacad warbaahinta Jubbaland boosaaso